Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. In ka badan 135 sano ayaa ka soo wareegtay qarnigii 18aad markii ugu horeysay gumaystaha Ingiriisku mid carriga Soomaalida kaasoo ku soo degay Somaliland. Fikirka siyaasadeed ee Ingiriiska ama shaxda siyaasadeed ee gumaystaha Ingiriiska ayaa ahaa kala qayb saddex xukuntin taasoo uu isticmaalay Soomaalida. Xirfadlayaasha xilliga jiray oo ku ahaa runtii dhibaato aad u weyn ayuu ka soo qaaday inay lama taabtayaal yihiin ama qabiilka aan laga guursan. 135 sano kadib qorshigu saameyn intee lag ayuu ku yeelan kara dhaqaalaha ama kobaca dhaqaalaha waddan isdhexgalka bulshada iyo dhammaan hay'adaha horsocodka waddanka. Su'aalahaas oo dhan waxaan kaga jawaabi doonaa barnaamijkeena shaxda siyaasadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. 1884 ama qarnigii 18 ayaa ahayd markii ugu horeysay Ingiriisku yimaado ama gumaystuhu yimaado deegaamada Soomaaliyeed waxaanu ka soo degay dowladda Somaliland. Ingiriiska ayaa wuxuu watay fikirka ama ideology-ga kala qayb saddex xukuntin ayaa diraasad ku sameeyay Soomaalida. Wadamada kale Afrikaanka ah oo xilliga beerolayaal ah ayaa si dib yar loo qabtay laakiin Soomaalidu waxaan dad reer guura ah isku socda diinta Islaamkana aad u jecel. haddaba si uu Ingiriisku u xukumo ama uu kala xadeeyo socodka Soomaalida taasoo dhibaato ama carqalad ku keeni karta iyo xilligaas ay jireen Soomaali xirfadda hubka samayn karta oo ha xirfadlayaasha Soomaalinimada iyo xirfadaha kala badnaa lahaa ayaa wuxuu Ingiriisku arkay inay fursad meesha taalo inuu abuuro qabiilo ama qabyaalad Soomaalida oo taariikhdooda la yaqaano oo in ka badan 3,000 sanadood ku noolaa deegaanada Afrika ayaa waxa la abuuray fikir siyaasadeed ama ideolojiyad dadka lagu xadeynayo qabyaalad ah taasoo Soomaalida isirkooga lagu soo koobiya inay ka yimaadeen odayaal gacanka Carabta ka yimid si uu xirfadlayaasha uga dhex saaro bulshada ayaa Ingiriisku wuxuu bilaabay inuu ama si ay xirfadlayaasha saameyntoodu aanay ugu badan bulshada ayaa wuxuu bilaabay Ingiriisku kutirkuteenta ama faafinta aragtida ah inay yihiin qabiilka lama taabtayaasha ama dadka aan laga guursan taasoo sameysay in hal abuurkii dhanay bulshada gooni la takooro Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam ayaa markuu dawladnimadii Islaamka ka abuuray Madiina ayaa shaygii ugu horeeyay intaanu xafiis ama masaajidka abuuranaya oo ay ahayd inuu walaaleeyo qulubta muslimiinta waana shaygii Bilal bin Rabah Abu Bakr as-Siddiq Umar bin Khattab Salman al-Faris iyo asxaabtii oo dhan iyadoo qof walbaaba uu ka yimid isir ka duwan iyo social class ka duwan qofka kale noqotay in ruuxdoodu mid ay noqoto waxaanu nabigu calayhi salaatu wassalaam tusay inay ku kala fadilan yihiin oo kaliya oo karaamada qofka lagu eegayo sidoo qofkaas qalbigiisu Ilaahay ugu dhow yahay wuxuu nabi Muhammad calayhi salaatu wassalaam saxaraha carbeeda kulul ka abuuray al-Madina al-Fadila ama magaalada runtii la jecel yahay qof walbaaba uu jecel yahay in lagu noolaado waana magaalada buuga uu ku qoray Plato buugiisa la yiraahdo The Republic taasoo ahayd in la abuuri karo magaalo qodadkoo dhan ay u siman yihiin ama anshaxa iyo qalbiga daahirintiisa iyo xikmadu ay tahay mid hogaamin karo waxa hubaal ah inuu anshaxu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam iyo sinaanta iyo hayaanka Ilaahay uu abuuray Nabi Muhammad dawladnimada abuuray inay tahay aasaaska dhabta ah ee dawladnimo ama markuu wadan doonayo inuu horumaro uu dawladnimadiisa ka bilaabo inuu mideeyo ama loo arko in shacabka dhali ay u siman yihiin cadaaladda waddanka Ilaahay ayaa xadiisul qudsi nabiga calayhi salaatu wassalaam inoo sheegay kullee naftayda waxaan ka xaaraantimay dulmiga idinkana waan idinka xaaraantimay ee hays dulminina addoomadaydiyo waxaanu nabigu calayhi salaatu wassalaam xajjatul wadaac ama hadalkiisa ugu dambeeyay xajkii ugu dambeeyay xajay uu ku sheegay inuu dhiigiina cirdigiina sharaftiina iyo maalkiinuba xaraan idinka yahay hadalka nabiga oo ah runtii bilowgii aasaaska la aasaasay xuquuqal insaanka la qoro ama si dhab ah looga hadlo nabigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku sheegay iyo Ilaahay quraankiisa wuxuu ku sheegay iyo xadiisyada nabiga calayhi salaatu wassalaam waxay sheegaan in qoorsigu aanu ahayn mid lagu ogolay xagga Ilaahay Francis Fukuyama oo ah qoraa Mareykan ayaa buugiisa Identity kaga hadlaya in bulshada horumarkeega ama haddii la doonayo bulshada in la horumariyo la sameeyo ruux midaysa bulshada dhan ama jihaynta bulshadu ay fududaanayso markay jirto
ruux midaysa bulshada dhan qabyaaladda ama fikirka siyaasadeed qabyaaladdu runtii waa mid sii kala fogeynaya yaraynayana hal abuurnimada iyo inay bulshadu noqoto mid isku soo dhawaata ama isdhex gasha hadraawi oo ah gabaya ama filosof Soomaaliya ayaa kula gabaygiisa sirta nolosha ninku idhi sinaan mayno adna buri sarayntiisa sidka waad wadaagtaane masagaashan baatiisu Somaliland oo lagu aasaasay kacdoonka u dagaalanka sinaanta ayaa ilaa iminka 30 sano iyadoo ku dhow aan dawladda Somaliland aanay wax shuruucada ka soo saarin dadka Somaliland ka mid ah qabiilada Somaliland ka mid ah iyo dadka Somaliland ka mid ah ee xaqooda duudsadee ilaa iminka bulshada kale aan loo arkin in la siman yihiin taasina runtii waxay keenaysaa waxay dhibaato ku noqonaysaa runtii hayaanka iyo horsocodka Somaliland iyo dhammaan dawladaha kale iyo deegaanada kale Soomaalida ma aha runtii in hiigsiga iyo riyada ilmaha ama dhalinta Soomaalida ee ku nool dawladaha kala duwan ee Soomaalida lagu xadido qabiilka uu ku soo jeedo qof walbaaba waa inuu nasiib u helaa hiigsigiisa inuu gaari karo isagoo lagu eegay kartidiisa iyo aqoontiisa taasana ah mid runtii horumarin karta bulshada qursigu runku waa fikir diinta islaamka soo horjeedo aqliga wanaagsan ka soo horjeeda oo qof aqli hagaagsan aanu aaminsanin in qofka lagu yasi karo ama lagu qoorsan karo isirku ka soo jeeda taasina runtii waa mid ah in dawladaha Soomaalida oo dhan ka hortagaan dawladda Somaliland waxaan leenahay waa in sharciyo adag laga soo saaraa si loogu hortago ama loo ciribtiro qursiga haddii aad tahay qof aaminsan hayaanka sinaanta iyo in bulshada Soomaalidu ku siman tahay xuquuqdeeda fadlan fiidoogan la sheergaray asxaabtaada si aynu u faafino fikirka ciribtirka qursiga haddii aanad ku soo biirin bahda shaxda siyaasadda fadlan like gare comment iyo share ku samee fiidoogan koorta ama gambalaalkana shido si fiidooyada la midka ah aad u heshid waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh